deganahay xaafada Sawti Munali goor adigu duhradii ayaa gabadha haaska soo wacday waxay tiri meel harqaan baan aaday ilmada ugu soo talanaysay naala jidka taagneed baa agmartayna kida joojisay waxay ku tiri takhtar ka shaqeeya mataqaana la yiraahdo Maxamed Hebel Maxamed oo Kenyatta Hospital ka shaqeeya oo takhtar kansarka ah qofka joojinayna Soomaaliya ma naag madow waaye haye waa xaafada Sawti dhexdeeda haye ma garanay ku tiri markaas waxay tiri okay waa maxsan tahay intay tiri gacanta ku salaan haye suu labaada agtaagan ee ag maraysay tii labaadna waxay ku tiri gabadha baa qaanay ee xaqin ku arkay waxa adigu hadalna noocaasa kadib markii salaantay kadib meel ugu dambeysayba baabuur beenisay wateen baabuurkii lagu riday xaafadeeda la geeyay baabuurka banaanka ku bakan garaysan waa degtay gurigeeday gashay qolkeeday fuushay kor ala wixii lacag u yeelay iyo dahab ay aruusay naagii ugeys dadka qaadaya ee gaariga ku ridaynayna waa labadii ee haween oo mid ay salaantay mid kalena ay tiri waan garanaya qaab siday ku qaadeen mataagnida ka dhacday ma dhicin ay caadi ah gaariga soo gala la yirina keen guriga aadayna intaas way garanaysaa wax ayaa lagu buufiyay waxa kale lagu buufiyay salaantii kaliya way marka la salaamay way isgaran weysay marka meel lama xanuunayso guriga la geeyay labadan haweena iyaga ah gurigaada ma garanayeen siday gaariga ay guriga ku geeyeen gaariga gabadha guriga la yiri guriga geey way ka haysay iyada ka haysay bayada taqaan guriga Soomaa naga saddex caayeen من باورك وضي لبنا ركاوي هاي ولا صعدين سواء جورجي مركز سكتي توضع إنه جورجي إذا قلت كذا كشيء وهي العقل يذهب يلاقي سوق عادي بنانك يصوب حداي جارجي بكين كي ماشي أيدكتين أيوه كجرا أيوه تكتي الباب كان لقى فري واقف ديستي وحيلاد هاي مركا مرة أبو حرني الذهب كا أبو دوبنات بطل ساعتين يتري حدنا مركا أنا جعنتي دوبمتي فين يتري وصلّرتي مرة بين أنا ووقع يعني صلّرتي جوري مركان إمت مرة بين أن فري وحاكجرا مرة عاصي إذا نقول كم يتري مرة بين ذهب كي كمجرا. أنا كحوم هاي دعذا إن قبستي دعذا حاس كاجا كنت مد حلقي أي قبسني iyo guriga ay ka soo baxday masaafada isku jiraan waa intee masaafo waxay isku jiraan almost 1 kilometer iyada marka ay dahabka soo qaadayso ay gaariga galayso dhabta ay saarayso isma ogo macnaha waxay sameynayso waa u jeedaa laakiin waxay meel ay u socotiyo waxa meer fiican male siday kugu sheegtay inay waxa ay wado inuu dahab yahay xilligaas ma ku baraarugsanay ku baraarugsanay markii bilma ay ku baraarugtay waxa kaaga daran markii guriga timid oo maradii ay waday ay furtay ma dahabkii ay ka daysay ma dahabku ma jira ciidii oo ku jira maxay samaysay marka waxa kaaga daran isla markii waxay aragtay oo naxaday oo dahabkii meeshii ku waysay haddana waxay waysay ooskii iyo kataambadii oo wada socdaan guriga dhexdiisa dhagax madow oo kuusan ee guriga dhexdiisa ka aragtay halkaas haddaan su'aal kaa weydiiyo haweenkan guriga gudaha ma u galeen حتى جنديلك ما سو قليل بنقول جيت كوين أو استيت كلا يقال ما سو قليل بناجي زي دكتور مركز تحاجي مركز أي حركتين براركتين مركز أي تلفون يسوي برتين عارين ده سيكون عاري حاجين جوكا مركز خسارة سيكون يكون عاري داب كيو ولا تجي أبو داب هو الصيد كي قارت قبله أكو أنا يوم دقيقي فرقشي جميعي كعنت الجلين يوحي أصلا ألعاب كلو جريا أي كواي سيمي أجرا أو أنا دهب كاهين والله كاشا دبعتك كلو إذا شخصي هان سو جارتي markii ay sin noqotay marka laga soo watay wax kale oo soo gaaray ma jira hadda markii waa adigu baarba waa naxsanayd haye hadda fiican wax ka waa naxday oo naxdinta markii ay ogaatay wixii naxday moogi wax kale hadda dhibaato kale ma qabto talaabada ugu horeysa oo qaaday maxay ahayd marka guriga tagto wallahi guriga markaan tagay iyadaan wareystay taasi waxa ugu dhaceen bay ii sheegtay dhacdadan oo kale horey ma idin qabsatay ka qoys ahaan maya waxaan ugu maanta nooreey hadda ka hor ma maqashay dad ay qabsatay wiilana waxa inta ka hor qola saasoo kale lacag $8,000 looga dhacay oo la yiri waxa inta la tusay oo dahab way la yiri la cararay wixii ataa ugu jiray iyo lacag isku soo aruuriyay markii hooyadii ku wareejiyay oo soo baxayna oo arkay wixii qaruura dhagaxa inuu yihiin marka hadda maxay idin qorshaysan wallahi hadda wax kale aan qorshaysan ma jirtay kulli waxaan isiri dahabka ay qaateen waa dahab dumarka Soomaalida ee xirfaan madowgan dahabka nooca sameeyaan kulliba meelaha dahabka lagu galo ama Soomaalida ku dahabka ganacsato bay jeeyaan oo ka gadaan mise Soomaaliba ay ka gadaan laazim ay iska loo dahabka isticmaasho Soomaaliya oo mudaha kale dahabka nooca kale isticmaalaan kulliba tan hadda waa tagtay hatta umada kale Soomaalida ku dhicin in la baraarujiyo oo loo sheego
marka arrinta oo kale hadee marka aan dhicin mar dambe umada looga digana waa bari muhiim walaal waa mahadsantahay bal gabadha haddii ay ku sii sharaxday haweenayda kale markay salaanta kadib gacanteeda wax ma ku aragtay daawo la mariyey mise wax qooyaan ah mise wax caraf iyo suur kale waxba kama dareemin bay igu tiri wax kale oon ka dareemay male maadaama dhacdada adi aad la kulantay oo qoyskaada ay saamaysay lagaagana sheekeeyey bal haweenka ay suuragal tahay sidan oo kale inay ku dagmadaan haddaad la hadasho inkastoo ragga xitaa ay saamayn karto soomaalida rag iyo dumarba waxaan ugu digayaa waraaqaha ay haysiiska ku qoran oo baabuurta jidka loogu qiimiyo dadka kuwaas oo kalena gabadhaas kenyaanka loo dhiibay oo taas ayuu ku dhacday in laga digtoonaado arrinta oo kale iyo dumarka soomaalida inay ka digtoonaadaan maxaa yeelay lacag iyo dahab ay sitaan waa lagu baaran karaa inaynu gaaladan aynan salaamin aadanow dhagaxii meesha ma ka saartay dhagaxii waa qaadeen banaanka ku tuuray soo ma habboona yacni in meel fog lagu tuuro oo guriga isaga qur-aan lagu akriyo oo laga xirxirto soo meesha kuma jirto maya horta dhagaxa kolley dhagaxa xuba maahe annagu ismuslim nahaye kolley sanaba waxaan sehirna wax nama yeele insha allahu qur-aan waa ka akhrisanayna